bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo ee radio kulmiye qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku baaqay in la qaado dhagaxaanta la dhigay wadooyinka magaalada Muqdisho aaska meydka abwaan Singub oo ka socda magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku wajahan magaalada Gaalkacyo iyo Galmudug oo diiday kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo lagu qarxiyay inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Buur-Hakaba ganacsatada Kenyaanka ah ee qaadka keena Soomaaliya oo sheegay in ciriiri ay kala kulmayaan suuqyada Soomaaliya xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari walaac xoogan oo laga muujinayo badqabka maxaabiista ku xiran xabsiyada Masar iyo isbedel ku yimid amar uu soo rogay Donald Trump markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beeraraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale duhur wanaagsan jimco wanaagsan waa 22 bishii 6 ee Juun sanadka 2019 Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa warkeena duhur soo saaray Faadimo Abuukar Cabdi iyo Farxiyo Xuseen Cali ayaa soo jeedinaya markana u diyaar garoow warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku baaqay in la qaado dhagxaanta la dhigay wadooyinka magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa uu la dardaarmay askarta booliska ee joogta wadooyinka caasimadda isagoona sheegay in loo baahan yahay in shacabka loo fududeeyo wadooyinka si ay u maraan meel kasto Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkaan inoo faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed saraakiil ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo saraakiisha booliska gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka ayaa waxay xalay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho kulanka dhaxmaray saraakiisha ammaanka iyo mas'uuliyiinta dawladda ayaa waxa inta badan looga hadlayay ammaanka magaalada Muqdisho iyo sidii isbedel loogu sameyn lahaa dhinaca amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa wax uu sheegay in amniga caasimadda uu galay qaybtii labaad isla markaana laga gaaray guulo la taaban kara sida uu sheegay taliyaha booliska Soomaaliyeed dhammaan saraakiisha kale halkan joogto saraakiil xigeenka gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka iyo saraakiisha ka socota xafiiska ra'iisul wasaaraha muddo waa la socotaan waxaan wadnaa anaga qorshaha amniga caasimadda dhaqangelintiisa oo aan habeen walba aniga taliyahaba aan guddigaas amniga aan la joogno isla markaana ay jiraan guddiyo kormeer u baxa maalin walba soo qiimeeya xaaladda amniga ee caasimadda ayagana warbixin laga dhageysto waxaan kaloo warbixin ka dhageysanaa howlgallada socda ee ciidamada booliisku ay ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaan kaloo warbixin ka dhageysanaa hotline-ka ama taleefanka 991 oo booliisku maamulo iyo dhacdooyinkii maalintaas dhacba intaas ka sokow qorshaha oo amniga caasimadda waxa maraa qaybtii labaad waxay tahay in amnigii la adkeeyay la hagaajiyay horumarka laga sameeyay uusan hoos u dhicin oo kor loo sii wado waa ogtiina wax walba oo 75 waaxood ee gobolkan in wax walba ay police joogaan maanta wax walba ay joogaan dadkii maamulka waaxdaas qorshaha waxa kale ku jirto in howl kasto hadda la qabtay la dardar geliyo la sii laabo cadawga kooxaan argagixisada ay tusaale fiican ugu noqoto kulanka caawa kale waa kulan ay ka naxayaan waa kulan ay ogaanayaan in loo tabaabushaysto sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu la dardaarmay askarta booliska ee jooga wadooyinka caasimadda isagoona sheegay in loo baahan yahay in shacabka loo fududeeyo wadooyinka si ay u maraan meel kasta oo kamid ah caasimadda sidoo kale gudoomiyaha waxa uu dalbaday in la qaado dhagaxaanta ku xiran wadooyinka caasimadda gudoomiyaha waxa kale uu sheegay in ay jiraan dad uu qaswadayaal ku sheegay isla markaana siyaasadeynaya amniga caasimadda taasina aan loo baahnayn sida uu hadalka u dhigay booliisku waa sharafka iyo karaamada shacabka waa kan ilaaliya hantidiisa waa kan aan oran kala wareeg waa kan aan dhihin ay soo dhawaan waa kan aan qoriga ku taagin intaasna sidoo taliyuu sheegay booliiska Soomaaliyeed dhaqankooda maba ku jiraba waxaan rabnaa inaysan dhicin kala wareeg waxaan rabnaa shacabka in loo dhirmiyo waxaan rabnaa shacabka in loo fududeeyo baawurtooda la baaro
oo ay gudbaan meel walba waxaan rabnaa dhagxahan meelaha la dhigay in la qaado sida kaliya lagu qaadi karana waxay tahay in amnigii la sii sugo kooxaha argixisada meelaha ku dhumaalaysanayaan laga saaro midda kale oo dadka qaarkood yiraahdo dhagxaha maxaa loo dhigay horta su'aashana isweydiinna waaye dhagxahan yaa dhigay waa jidadka waxa dhigay kooxaha argixisada oo shacabkeennii baabuur inta soo qaato meelihii dadku u badnaayeen ku qarxinaya dilaaya annaga mas-uuliyadda naga saaran shacabkaasi loo badbaadiyo waayo wax dhagax loo dhigo loo hubiyo ma kii argagixisada kusoo dhuumanayo mise waa shacab caadi ah shacabkuna arrintaas waa ogsoon yihiin laakiin dad yaroo qaswadayaal ah oo raba inay siyaasadeeyaan amniga ayaa mar walba waxay u rogaan sida kale sida keliya aan uga hortegi karno waxaa waaye tii dhacday maalintii ciidda magaaladan oo shacabkii la tusay baambeydii soo baxday booliisku irid walba taagnaa shacabkii booliiska gacmaha is haysteen annagana aan meel walba tagnay oo fursadda amniga la sameeyey darteed hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir iyo kulanka dhexmaray saraakiisha ammaanka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo magaalada muqdisho ay ka dhaceen bilooyinkii u dambeeyey qaraxyo kuwaasi oo intooda badan ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya hase yeeshee amniga caasimadda ayaa u muuqda mid soo hagaagayo marka loo fiiriyo sanadihii u dambeeyey waxaa hadda magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka socda aaska Allah u naxariistay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub oo maalmo ka hor ku geeriyooday dalka Itoobiya aaska marxuumka ayaa maanta waxaa ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maamulka Soomaaliland xubno ka socda xukuumadda dowlad deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed abwaanka ayaa talaadadii la soo dhaafay waxa uu ku geeriyooday magaalada Addis Ababa kadib xaalad caafimaad oo la soo daristay deegaanka Daynuunay oo ka tirsan gobolka Baay ayaa maanta waxaa qarax xoogan lagula eegtay ciidamada Ethiopian ah oo marayay deegaankaasi qaraxaasi oo ahaa mid ay jugtiisu aad u xooganeed isla markaana laga maqlay inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Buur-Hakaba ee gobolka Baay ayaa dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ciidamadii Ethiopian-ka ahaa ee lala eegtay qaraxaasi goobjoogayaal ayaa KNN u sheegay in qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan Ethiopia waxa ayna sheegeen in qasaaraha lixaad leh la gaarsiiyay ciidankaasi warbaahinta al-shabaab ayaa waxay sidoo kale sheegtay in qaraxaasi lagu dilay 5 askari oo ka tirsan ciidanka Ethiopia dhanka kale ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidanka Ethiopia ee gobolka Baay iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Gaalkacyo sidoo kale maamulka Galmudug ayaa shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala deegaanada Galmudug waxa ay ku amreen in aysan ka soo dejin karin wafdi ka socda dowladda federaalka Liibaan Cajiib Xaaji wariyaheena magaalada Gaalkacyo ayaan ka wareysanay وماسنتها عليو وفد hogaaminayo senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybiga oo gudoomiyaha labada aqal ee dastuurka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa goordhow inuu soo gaaro magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midowg waxaana socdaalkiisa ku welinaya sida hordhaca ay mukeedeen xildhibaan Mahad Salaad iyo xildhibaan Warsame Joodax oo kamid ah baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha oo shaakay magaalada Gaalkacyo ka socoto qabanqaabo lagu soo dhaweynayo wafdiga ka socda xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ujeedka rasmiga ee socdaalka lagu sheegay inay tahay in kulamo kala duwan ay ula qaadan lahaayeen siyaasada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ay kala hadli doonaan xalinta dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay dad shacab ah oo ku noolaa deegaanada hoos yimaada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midowg waayahay Liibaan waxaad iga warantaa dhanka kale maamulka Galmudug ee amar waxa uu duligay shirkadaha diyaaradaha amarkaas muxuu yahay وماسنتها warqad goordhow ka soo baxday xafiiska madaxtooyada dowladda goboleedka Galmudug ayaa lagu amray dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya deegaanada Galmudug in aysan soo qaadi karin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya heerarkooda kala duwan isla markaana aysan ka soo degi karin ayagoo wada madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana lagu amray in shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Galmudug in arrintaasi si degdeg ah u dhaqangeliyaan maadaama warqadu ay ka soo baxday xafiiska madaxtooyada dowladda goboleedka Galmudug
ganacsatada Kenyaanka ee qaadka keena Soomaaliya ayaa sheegay in ciriiri ay kala kulmaan suuqyada Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa xilligan ku guda jirto sidii suuq hor leh ay ugu heli lahayd qaadka ka soo baxa dalkeeda xilli qaadka laga keeno Kenya oo loolan adag kala kulmayo qaadka Itoobiya ee la keeno Soomaaliya. Warbixintan waxaa ka waramaya Maslax Abuukar Xaaji. sida uu daabacay wargeyska Business Daily ee ka soo baxa dalkani Kenya waxa ganacsatada qaadka geysa Soomaaliya ee Kenyaanka ah ay walaac xooggan ka muujinayaan ganacsato kale oo Itoobiyaan ah oo si xawli ah u soo galay suuqyada qaadka lagu iibiyo ee Soomaaliya taasi oo ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan oo dhinaca dhaqaalaha ah ay kala kulmi karaan. Gudoomiyaha ganacsatada qaadleyda ismaamulka Meru oo ah halka laga dhoofiyo qaadka la geeyo Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ku aadan in suuqyo cusub oo qaadka lagu iibiyo ay ka raadsadaan qaar ka tirsan wadamada Afrika. gaar ahaan qorshahan ayaa waxa uu ku wajahan yahay in suuqyada ganacsi ay doonayaan ay ka raadiyaan wadamada Djibouti iyo Mozambique. waxa qorshaha uu yahay in toddobaadyadana soo aadan wafuud kala duwan loo diro wadamadani si ay uga soo qanciyaan in qaadka Kenya halkaasi suuq looga helo. in badan oo kamid ah dadka u dhunduleela arrimaha dhaqaalaha ayaa talaabadan waxa ay ku sifeeyeen in haddii uu sii xumaado xiriirka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ganacsatada qaadka ay lumin karaan lacago aad u badan si taasi looga tawaawasheystana ay haatan u furan tahay fursado kale oo ku saabsan in suuqyadooda ugu badan ay u wareejiyaan wadamada xiriirka wanaagsan la leh Kenya oo ay ugu horeeyaan Mozambique iyo Djibouti. waxaana talaabadan ay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya waxaana in badan oo kamid ah siyaasiyiinta labada dal ay ka dhursugayaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda iyo cidda loo go'aamin doono in ay leedahay badda lagu muransan yahay ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacish ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. raggan la qabtay ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa ilaa iyo 6. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya. ciidamada amniga maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo BSF ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno la sheegayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab. xubnahan ayaa lagu soo qabtay howlgal baaritaano ah oo ciidamada ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo lagu tuhmayay inay ku sugnaayeen dagaalamayaashaasi. qoraal ay ciidanka soo dhigeen barteeda Facebook ayaa waxa ay ku sheegeen in baaritaanka ay ku soo qabteen ilaa 6 xubnood oo la sheegay inay ka kala tirsan yihiin dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab oo ku dhuumaaleysanaya xaafado ka tirsan magaalada Boosaaso. ciidamadu ma aysan sheegin in howlgalkaasi cid wax ku noqotay iyo in kale. ha yeeshee baaritaankan ayaa imaanaya iyadoo gelinkii dambe ee maalintii shalayto ay ciidamada amniga maamulka Puntland ay fashiliyeen qarax miino oo la dhigay wadada muhiimka ah ee dhexmarta bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. saraakiisha ciidamada BSF ayaa shaaca ka qaaday in saacadaha soo socda ay warbaahinta horkeeni doonaan xubnahan ka kala tirsan dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab oo howlgalka baaritaanka ay ku soo qabteen ciidamada amniga. waxaana ay sheegeen in xubnaha lagu eedeynayo inay horey kaga qayb qaateen falal ammaan darro ah oo ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. halkaad warkaasi duhurnimo kala socotaana dhageystayaal waa Radio Kulmiye. waxaa inoo soo socda akhbaaraadkii caalamka hase ahaatee. kadib geeridii ku timid toddobaadkan madaxweynihii sida dimuqraadiga ay u soo doorteen shacabka Masar Maxamed Mursi ayaa waxaa soo baxaya walaaca laga qabo badqabka maxaabiista ku xiran xabsiyada Masar. taliyihii hore ee ciidanka amniga Masar oo isku bedelay madaxweynaha haya talada ayaa kordhiyay cadaadiska uu ku hayo shakhsiyaadka uu u arko in ay caqabad ku yihiin xukuumadda. amar ka soo baxay Cabdulfataax al-Siisi ayaa waxa uu ku faray ciidanka in ay xabsiga dhigaan cid kasta oo ka soo horjeeda dawladda oo uu arkayo in ay qalqal gelinayso amniga. waa sida uu sheegtay. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay cadaadis xoogan ay wajahayaan maxaabiista ku xiran xabsiyada. agaasimaha bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika u qaabilsan Human Rights Watch Sarah Wilson ayaa sheegtay in jirdil loo geysto siyaasiyiin iyo shakhsiyaadka u xiran dawladda Masar. Faaduma
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu meel mariyay khamiistii shalay ahayd in weerar lagu qaado dalka Iran balse Donald Trump ayaa dib uga laabtay go'aankaasi sida ay saraakiil ka tirsan Washington ay u sheegeen warbaahinta Mareykanka wargeyska New York Times oo ay soo xiganaya saraakiil military ayaa qoray in Trump uu amray in la weeraro baraha control ee ciidanka amniga Iran gaar ahaan goobaha ay yaalaan raadarada la socda hawada iyo saldhigyada gantaalaha la dhigo Donald Trump ayaa amarka lagu weerarayo Iran dib uga laabtay fiidnimadii xalay wargeyska Washington iyo warbaahinta ABC ayaa iyaguna tabiyay qabaar ku aadan arintan iyaga oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad warkan ayaa imaanaya saacado kadib markii ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay soo rideen diyaarad nooca waxbasaasta ah oo ay leeyihiin militariga dalka Mareykanka warka duhur oo aad kala socotaan idaacada kulmiye ee Muqdisho waa inaga inta cid uu seego raadiyo kulmiye.net ay ka heli kartaa nabadgelyo